Ambassador James Iswan xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya laakiin xilkii laga qaaday loona bedelay dalka Congo isaga oo 30 cisho wax ka badan xilka Soomaaliya laga qaaday haddana wali xalan u jooga Congo ma aadin ma jirto shaqo kale oo uu qabtay UN-ka wali Muqdisho dhex jooga wuu qinaasay marka ninkan ama wuu xanaaqay wuu ku wareeray madaxda caalamka iyo tan Soomaalida xilkii baa laga qaaday Congo loo wareejiyo waxa leeyahay Congo aad u wareegaysaa welina xilka qaadis iyo xil wareejin ma dhacayso oo xilkii ma wareejin wuxuuna ku dhex wareeray madaxda Soomaalida si gaar ah mucaaradka dawladda oo Xasan Sheekh uu la kulmay toddobaadkan laba jeer toddobaadkii ka horeeyay Shariif iyo qaabilay madaxdiina waxa uu kala yahay in ay geeyaan halkii loo magacaabay oo ahayd Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee DRC Congo wuxuu leeyahay Congo-dii ay magacaawdeen igeey xamartaan mar un yaa iga wada wuxuu qarka u saaran yahay inuu iscasilo gabi ahaan uu diiday shaqada qaramada midoobay aad ay ugu wareeray waliba toddobaadkan kulankii ugu dambeeyay oo la yeeshay madaxweyne Xashi Maxamuud ayuu ninkan confuse badan ku qaaday sida xogtu ay leedahay kadib markii Xasan Sheekh laga waayay wax hadala waxa la yiri doorashada nooca aad rabto hadii lagu diido maxaad ugu soo dhawaanaysaa Xasan madaxa u buuluxay wax cad oo laga qoray ayuu waayay meel u raaca Soomaalida ayuu leeyahay Congo-dii loo magacaabana lama geenayo madaxdii qaramada midoobay isagu un bay wali aaminsan waxaaba suuragal ah in laga laabto warqadii Congo loogu wareejinayay wali inuu Muqdisho iyo Xamar sii joogo ilaa doorashada dhinacay u dhacayso ayaa laga yaabaa leeyahay waxaan eegaynaa Ambassador James Iswan sida ay suuragalka ku noqonayso in wali Soomaaliya uu ka sii shaqeeyo isaga oo loo wareejiyay dal kale oo Afrika ku yaal sidoo kale mowduuceenan waxaan il gaar ah ku eegaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aan ku gaartay ugu dambeyn qofka loo dooranayo madaxweynaha Koonfur Galbeed maadaama 30 cisho in lagu soo dhiso waxa oo dhan go'aan lagu gaaray dastuurkana uu dhigayo ninka ku meel gaarka u ah ee la magacaabay iyo madaxweyne Xashi Maxamuud oo shiray laba nin ayaa miiska u saaran waa Xuseen Sheekh Maxamuud oo saaxiib la ah Xasan Sheekh iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe wasiir madaxana furan gudoon baarlamaanka la siinaya Xasan Eelay iyo Mukhtaar Robo iyo xubno kale aad ay u careysan yihiin oo talaabada ay qaadayso dawladda ay aad ugu xun yihiin barnaamijkaasna isaguna waa isla falaqeynayna hadii alla weyno laga helo Abiy Ahmed oo Djibouti ka diiday 60% dekada Tajuura taasi oo markaasi ka shiftay damciisa dhabta ah iyo in uu doonayo ninkan in qaab awooda uu badaha ku qaato badda Eritrea hore u waayay mid Djibouti isku dayay tii Soomaaliya dagaal ah wala galay waad ogeydeen warkiisu waa cad yahay inuu bad helo ayaa ka go'an ninkan oo xoog iyo xeelad sidii uu doonaba ha ku qaatay warbixintaasna iyaduna mowduuceena ayay ugu dambeyn doontaa saaxiib hadii aad channel ku cusub tahay nagu soo fiir oo subscribe muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibadaada waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa argeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan waa mid kamid ah magacyada aadka loogu isticmaalka badan yahay gudaha iyo dibadda Soomaaliya marka la soo gaaro muddo xileedka ugu dambeeya dawlad kasta oo Soomaaliyeed waxa la xusuustaa doorkiisii aan inaba caadi ahayn 2022 waqtigii dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda mar kale waa isla sidii wax isbedelay haba yaraatay ma jirto madaxda Soomaalida ahna wax cashara kama bartaan baa la yiri siyaasadda iyo waqtiyada isrogay cimri baa ku kordhamooye aqliyad uma ziyaada la yiri ama lagu eedeeyay Ambassador James Iswan marka waxa warqad qaramada midoobay ay soo saartay bishii hore ay si cad ugu sheegtay in dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo loo wareejiyay ninkan uu qaramada midoobay halkaas kaga shaqeyn doono isla markaana Soomaaliya laga bedelay laguna bedelay muwaadin kale oo Mareykan warqadaasi kol hore ayaa la qoray laakiin wali xilkii ma uusan wareejin oo ma dhicin xil wareejin rasmi ah taasi waxay keentay in lagu wareero ninkan xilkii ma hayaa ma laga qaaday walina isaga booski hogaaminaya oo wixii qaramada midoobay Soomaaliya dana ay ka leedahay isaga loo soo maraya madaxa Soomaalida isaga la shiraya mucaaradka isaga sabaya oo leh jooga madaxweynuhu wali xilhayna u dhiman madaxweynaha isaga toddobaadka laba jeer la kulmay oo dhahaya maxaa damacsan tahay dastuurka wada hadal ma ka galaysaa doorasho qof iyo codka ah maxaan ka yeelnaa maxaa wada hadal oo goshay Xasankii uu la fariisanaya mucaaradku la fariisanaya wuu ku wareeray marka si caadi ah ayuu ugu dhaxwaashay qaramada midoobay iyo Soomaalida mar waxay ka joogtaa yaa ku geeyo Koongada iska dansan taasaaba la qaatay inaad joogto sababtoo ah siyaasadda Soomaaliya waa karkar Afrikaanta horta iyo dadka kale ee UN-ka u shaqeeya
Soomaaliya markii loo soo magacaabo aad bay u jecel yihiin sababtoo ah waa dal mashaariicdiisu badan yihiin oo dhaqaalaha ugu badan ee adduunka uu yaalo marka xubnaha ajnabiga iyo madaxda kale ee qaramada midoobay Afrikaanta markaasi aad la sheekaysato inta badan waxaad ka dhadhansanaysaa in Soomaaliya qofka loo soo magacaabayo uu yahay qof aad u nasiib badan sababtuna waxay ku sheegayaan in ay tahay in Soomaaliya markaasi dal aad u mashaariic badan musuqmaasuqiisu badan yahay qof kasta oo position yar hela ama boss yar laga siiyo dawladda oo markaasi qaadanayo qandaraas xad dhaaf sanado kooban uu ku sameyn karo lacag waaliya oo fooq lacag marka ninkan Soomaaliya uu ka lacageystaba 10 sano ugu dambeeyay wuxuu kamid ahaa xubnaha ugu sareeya qaramada midoobay wuxuuna ahaa ragga geed fadhiga ah siyaasadda dibadda ee Soomaalida ah hadda marka waxa leeyahay aad buu ugu jahwareersan yahay waxaana laga yaabaa in laga laabto warqadii xilka looga bedelayay oo markale markaasi in uu sii joogo Soomaaliya ninkan lagu amro geesta kale dawladda federaalku waxay go'aan ka gaaraysaa baa la yiri cidda koonfur galbeed ay ku aaminayso hoggaankeeda ama loo dhiibayo Aadan Madoobe uu doonayaa wasiir TikTok hore u rabay laakiin baarlamaanka Soomaaliya in la geeyo lagu qanciyay waxa kale oo raba Xasan Eelay oo xabad u riday oo aad ogeydeen in gurigiisa la burburiyay waa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mukhtaar Robow wasiirka diinta iyo umuraha islaamka ee dawladda dhexe rag badan isku haysta laakiin madaxweyne Xashi Maxamuud Dooqiis koowaad iyo labaad waxa lagu sheegay Aadan Madoobe iyo Xuseen Sheekh Maxamuud kaalmaha saddexaad iyo afraad ay ku jiraan Xasan Eelay iyo ninka la yiraahdo markaasi waa ninka kale ee la yiraahdo Robow wuxuu ka soo jeedaa beesha Leysaan waa beel saameyn ku leh gudaha koonfur galbeed halka Aadan Madoobe uu ka soo jeedo reerka la yiraahdo Hadamo oo iyaguna ah reerka beesha Hariin ee lafta gareenkii laga adkaaday markaas uu ka soo jeedo la tartamo isla markaana gudaha koonfur galbeed markii la joogo lafweynta ama reeraha waaweyn ee eeda markaas ku jira waxa kale Xasan Eelay oo inta badan hoos u dhigaya la yiri isagu waa yantaar awood badan kuma laha meesha halka wasiir madaxana furan uu yahay beesha Jiroon oo uu ka soo jeedo lagu qanciyana gudoonka baarlamaanka in la siiyo oo uusan qaadi karin mas'uuliyadda culus ee madaxweynaha koonfur galbeed maadaama aad uu la shaqeeyo dawladda Turkiga dadka dhaliila ama siyaasiyiinta ka soo horjeedana ay ku tilmaamaanba nin jaajuusa oo u shaqeeya Turkiga macaashka ugu badan hadda ka helayo shidaal qodista Soomaaliya aadna uga soo shaqeeya arkaas dawladda hadda marka doorkeeda waxa la yiri waa labada nin waa Aadan Madoobe iyo waa Xuseen Sheekh Maxamuud wixii ka soo haray waxa la yiri xilal ay ku qancaan baa la siin doonaa qaarkood safiiraha laga dhigaya kuwa gudoon baarlamaanka kuwana madaxa meel kale loo gelinaya sideebaad u aragtaa geesta kale dawladda Djibouti waxay shaacisay in Ethiopia ay diiday yabo ay ku siineysay saami dhan 60% oo ah markaasi lahaanshaha dekada waqooyi ku taala ee Tajuura la yiraahdo iyadoo xukuumadda ay sababa ay bedelka taas dalbatay in la siiyo marinbadeed gaar ah oo uu markaasi ay iyadu u madax banaan tahay kaas oo barbar socda saamiga ganacsi ee la soo bandhigay 60% dekadaadan lahayn ku yaala ninka diiday ee dhahaya dekad madax banaan ayaan u baahanahay waxa la leeyahay warkiisu waa cad xogtan waxa shaacisay hay'adda dekadaha iyo markaasi aagaga canshuuraha ka caagan ee dalka Djibouti ee loo soo gaabiyo DBFZ oo markaasi iyadu iftiiminaysa wada hadallada u dhaxeeya labadan dal ee dariska ah kuwaas oo xiriirkoodu dhaqaale uu udub dhaxad u yahay ganacsiga gobolka oo dhan gudoomiyaha hay'adaasi ninka lagu magacaabo Abubakar Umar Xadi oo shir jaraa'id qabtay ayaa xaqiijiyay in Djibouti ay Ethiopia u bandhigtay saamiga ugu badan ee ganacsiga dekada Tajuura balse mas'uuliyiinta Ethiopia aanay aqbalin qorshahaas waxaan nahay kuwa cad oo daahfuran dalabkeenu wuxuu ahaa saami dhan 60% oo Tajuura ah ayuu yiri gudoomiye Xadi dawladda Ethiopia way diiday soo jeedintaas waxayna dalbatay marin u gaar ah oo dheeri ku ah saamiga lahaanshaha Xadi ayaa carabka ku adkeeyay in Djibouti ay wali diyaar u tahay in la shaqeyso Ethiopia ayna si wadi doonto bixinta markaasi tasiilaadka laga maarmaanka oo ganacsiga dalkaas si wanaagsan ayaan ula shaqeynaa dawladda waxaana siinaynaa dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin si ay u isticmaalaan dekadayahay waa si ay u isticmaalaan dekadayada ayuu yiri albaabadu
albaabadeenuna waa ay u furan yihiin Ethiopia ayuu intaas raacsiiyay in ka badan 90% badeecadaha ay Ethiopia la soo degto ama ay dhoofiso waxay maraan Djibouti taas oo markaasi marinkan ka dhigaysa halbowlaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka ugu dadka badan ee markaasi Afrika Ethiopia oo dadkiisu kor ay u dhaafayaan ama geeska Afrika ugu dadka badan oo 130 milyan oo qof ay kor u dhaafayaan Ethiopia waxay isku dayaysaa helidda marin badeed ayna markaasi iyadu si madax banaan u maamulato horay Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isugu qabsaday qaybo kamid ah biyaha Soomaaliya taas ugu dambeyn markaasi keentay in dacwadoodu ay gaarto maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ geesta kale waxa xusud mudan in Ethiopia ay isku dayeysay in maamulka Somaliland ay aqoonsi beenaad ugu bedelato markaasi dekada agaarka Saylac oo dhul gaaraya 30 ilaa 50 kilomitir oo isku weera ay ka doonayeen in ciidankooda ay ugu sameeyaan xarunta ciidanka cirka Ethiopia taas oo iyaduna dawladda federaalka ee Soomaaliya ay aad u diiday xukuumadii doorashadii dhacday 2024 looga adkaaday ee uu horkacayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa heshiis ay gashay ganafka ku dhufatay dawladda federaaliga ee Soomaaliya khudbadii uu jeediyay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali sanadii 2023 wuxuu si cad u sheegay in Ethiopia ay xaq u leedahay inay hesho marin waxa uu xilligaasi adeegsaday weer caan ahayd oo uu yiri Soomaaliya oo 18 milyan waxay leedahay xeebta labaad ee Afrika ugu dheer Ethiopia oo 130 milyan ahna malaha waxayba taasi waa cadaalad darro ayuu adeegsaday waxa uu yiri xoog iyo xeelad sidii ay doonto ku timaade Ethiopia waa in ay yeelataa bad tan iyo xilligaas waxay ka dambeeyay Ethiopia waxay isku dayeysay in ay yeelato marin badeed ay iyadu u madax banaan tahay dal aan lahayn bad oo dhan oo uusanba alla siin ayaa tababaranaya ciidan badeed taasina waxa la isweydiiyay dalkeebu ku duuliyaa ama ku duuli doona dalka Ethiopia oo bad ka raadsan doona Eritrea hore ayayba isku qabteen oo way ka adkaatay Eritrea waliba bad ay Ethiopia lahayd bay haysataa lagu eeday inta badan halka Djibouti ay tahay dal ay aad isugu dhow yihiin oo ganacsigooda uu ku xiran yahay waxa la yiri marka dalka Ethiopia ay ku duuli karto wuxuu noqon doonaa kaliya Soomaaliya oo ay qaab awood ku doonaysaa qaadashada badda Soomaaliduna waa isuma jeedo oo iyada ayaa isku maqan waxaana muuqanaysa in aysanba u jeedin cadawga dibadda ah iyo dadka doonaya qaadashada baddeeda si kastaba hadda Ethiopia wali waxay ku jirtaa raadinta baddaas oo waxay ka raadinaysaa dalalka dariska ay ugu horeeyaan Djibouti Soomaaliya Eritrea iyo dalal kale oo dhowr maxaa kaaga baxay hadalka ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia aragtada qaybta hoose faallada nagu reeb muuqaalka like saar una sii share gareey saaxiibadaada waa maasantahay qaybta ka ahaa dhammaantiin salaamullaahi calaykum runtii kelmadda weyn ra'iisul wasaaraha leh maantana waa hadalnay waxaan dhihi karaa sanadkan 12 abriil waxaa la yiraahdaa barasho wanaagsan ciidanka xoog dalka sidii hore loo yaqaanay iyo perceptionkii iyo muuqaalkii laga haystay iyo maaragtay duruufihii soo maray waa ka dhalan rogtay wuuna dhaqaaqay runtii munaasabadan hadday macno leedahay waxay dadka Soomaaliyeed ku soo nooleysay ruuxdii ciidankooda ciidankuna waa sharafta dalalka dal ma sharfana hadduusan ciidankiisu sharfanayn xaruntaana hadda siday u qorxoon tahay rag badan oo wasiiraha ayaa yiri sidaan umaana malaynayn laakiin adduunka isbitaalada ugu fiican xarumaha ugu fiican nolosha ugu fiican waa tan ciidanka waayo ayaga waxay bixinayaan waxa ugu qaalisan oo ah nafta way u dhaawacmayaan way u naafoobayaan marka iyaguna waa inay waxa ugu fiican haystaan dalka Soomaaliyana waxaan ognahay si kastaba dawladnimadiisa ha u soo kabato laakiin dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed laga qaado canshuurta intooda ugu badan ciidanka la gashay 70% waxay gashay ciidanka marka taasi waxay muujinaysaa in waxba laga hagran tabartu laakiin halkaasna geesi haddii dhaqaalaheenu uu kordho oo weynaadana waxaa la kobcaya dhismaha ciidanka iyo baahidiisa runtii waan u hambaleynayaa
taliyaasha sareeyaasha iyo saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaska xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaantood waan u hambaliyeynayaa. waa maalinkoodii waa 66 sano jirsadeen waxaan rajaynaynaa sanadka 67 ay jirsadaan inay guushuna intaan ka badanayso magacuna intaan ka weynaan doono dalkeenuna uu sidaan ka sii fiicnaan doono. ilaahay idankiis dalku wuxuu ku soo barbaaray sanado kala googo ah ilaa la qariibsado oo dadka waaweyn oo madaxii ay ku hadlaan ciidankii Soomaaliya hadday arkaan annagana la soo weeraraya ama annaguna dhibaateynaya ilaa laga aaminay. taasi marka runtii meel laga soo noqon doono waaye. waa meel la buruuf gareeyay ciidanku sidii Baydhabo looga soo dhaweeyay in deegaamada Soomaaliyeed oo dhanna looga soo dhaweyn doono. federaalkan systemka federaalku wasaaradda arrimaha gudaha ka soo shaqeeyay. systemka federaalkuna ma ahan dowladnimo diid ma ahan. systemka federaalku waa xukun hoos loo daadejiyay adeegii oo bulshada la geeyay laakiin dowladnimadii ma ahan dowlad goboleedkaas xuduudeeda in la yiraahdo aniga maartay wax ii soo gali karana male albaabadiina waa xiran yihiin. dambi ka weyn oo laga geli lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed ma jiro. marka qof hogaamiye Soomaaliyeed uu ku dhawaaqo dowladii Soomaaliya xiriirka u jaro xagee aadaysa adiga hada xiriirka u jartay xagee ku taala sidee ugu jaraysaa sidee ugu dhiiranaysaa waxaas marka wixii fawdada laga soo bartay waaye. ciidanku wuxuu awood u heli doonaa ilaahay idankiis inuu waxa soo afjaro inuu waxaas dhameeyo inuu waxaas ciidanka loo arko xuduudihiisa inuu xirto hawlihiisa qabsado siyaasadda shaqo kuma leh ciidan. laakiin dhibaato haddii la arko ciidanku waa la falgelaya qarannimada iyo calanka iyo ku ah. marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa. waxaana daliil u ah in biyo lagu soo dhaweeyay Baydhabo in raashin lagu soo dhaweeyay oo shacabkii dariiqada u istaageen oo la arkay ayagoo sacbinaya oo soo dhaweynaya. hadday tagaan cirifka Soomaaliya geeskiisa kalena saasaa lagu soo dhaweynayaa. sababtoo tahay waxay u socdaan baa ah inay dhibka ummadda haysto oo ah cadowgaas khawaarijta inay maaragtay ka qaadaan dalkana ilaaliyaan. suurtagal maahan in nin dowlad goboleedii uu ku faraxsanaado ciidamo ajnabi oo agtiisa jooga kuwii qarankana yiraahdo ima soo gali karaan. marka runtii waa maalmaha laga soo noqonayo iyo fawdadii dalkani uu galay oo laga soo dawoobayo. madaxda hadda ay ku jirto arrintaasna waxaan rajaynaynaa biri qaar baa u xanqal taagaya inay ciidankaas xukumaan ay leeyihiin hadda dhibaato ugu leeyahay waana soo weeraraya. marka waxaan rajaynaynaa in ciidanka aan la dhibsan. maantana waa sheegnay ciidanku waa saaxiibka bulshada waa ilaaliyaha qarannimada madax bannaanida iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ee leedahay ilaalintiisa iyo dowladnimadiisa waaye. marka wax dhiba oo xambaarsan yahay ma jiro. dhammaan ciidamada ka dabaaldegay meel kastoo ay joogaanna runtii meeshoodaan ugu hambalyeynayna. cudud iyo waxay muujiyeen wax cadowga ummadani uu maaragtay ka naxayo dadka Soomaaliyeedna ku farxayaan sanadkan sanadkiisa